la socda caafimaadka ka faa'iideyso waana waa team walaalaha media runtii horta kaamirada ahay weliya ma khayroon wallahi bila jacayl uu sheekayna runtii ani waa khayroon wallahi waa khayroon kaamirada way dhicirta hatta wallahi bila jacayl uu sheekayna ma iga dhaafto banta wallahi beema wallahi dan xara umse dad badan iskuudan hadda naayib iskuudid hadhow cidla meel cidla meel cidla soo saayay wallahi asmiya ku shay amiin ana bta father of aba jacayl caafimaadka ka faa'iideyso aniga ah team walaalaha media state home xaafadda soo bixin gabar ayaan la sheekay ayada la socdo walaal saaxiibo iyo insa la sheekay sana oo reeyo jiray mar walba xitaa waxaan dhigi aan la hadlay waxaan gashay jiray duuta diriisa markaan luuq soo baxayo kala la hadlay waan ku jeedaa ayaan leeyahay waxa sameynaysa la socdo gabadh waa yaabi jirto waxay jirtay qofkan ruuxan miya marka gurigeena soo agmar waxaan dhigi jiray ku jeedaa haye way qeylin jirtay dhigi jiray haye aqraadka ma soo baxay saan waay aqraadka ma soo baxay aan qosli jiray aan baqbaq qafiirin ayaan qosli jiray mar walba waan la yaabinaa jiray gabadhan sidii nolosheed u aragtay xistii qofkan aqraad kula hadlayaa waay maalmaha kamid ayaan bareefta laga soo fasaxay ayadana waa laga soo fasaxay sida hadda arkay iskuulada loo fasaxo kale markaas ana luuq soo maray soo kal gareysay waana ka qabtay way aragteen ana way ugu damisay hadana way soo kal gareysay waana ka qabtay way faantay gabadhi way wacday waan u tagay gabadhi waan la soo wacday waxay tiri imisa maalin ayaad u weerarinaysay soodan aan ku xumaa baayo caaw ayaan wada sheekaysanaa way ila soo waxaan iray abaayo horta takaaga xaqiiqadaada kuma jecel aniga balse hal arin ayaan ku dhibaayo oo aan ku dab socday waxay tiri arinta ay dib socota aan ku dhibaysay maxay tahay aan waqtiga lama jirto waxaan iray qof lambarkiisa ayaan ka rabaa waxay u tiri aan ku siinay tiri qofka lambarkiisa balse qofku yahay gabadha magaceeda ayaan u sheegay waxay tiri hayay tiri waxay tiri saaxiibaday soo maaha lambarka diyaaro isla markiiba isla duurkiiba u tagta gabadha lambarkeeda ka soo qaaday ma aqaan aan lambarkeeda miisaysan isla markiiba lambarkeeda ayay soo qaaday duurka soo wacday oo soo siisay lacag ayaan ku shubtay markii maqribada camar la gaaray waan golgaray waxaan rahay halow fiicanta baa yaa way dhaaday mid taqaan miya maya waan ku danshay isla markii hadana ku celishay halow yaa waa mid taqaan miya waan ku garanayaa tiri maxay tahay marka hore ma ku aqaanay maya waan ku aqaanay dhaaday okay sorry aan dhahay in badan la sheekaysay wuxuu tiri buu aniga habeen maan u baray inaan hadla camal micnaha mana u baray inaan habeen qof la sheekay weligii xitaa qof lama hadlin balse waxa ka codsanay inaad wala soo hadasho qoraal oo macnaha message aan xitaa da soo message aan inuu soo qoto waxaan rabaa waxaas waa laga weenaaday maxay wax ku hadlaysay waxaas ma naga kool caadi ma yiri aniga guur ayaan waalidkeena jooga waxaas ma jecelo okay ana si walba ay hatta wax isku day in aniga nolosheeda wax kala dhacay waxaan ka dhacay inaan koolka mar walba ku waco aan dareensiyo saas ita koolka waa iga aqbashay teeda kale hadana waxaan baray inaan xitaa nolosheeda aan xiliyada dambe soo jeediyo aan xiliyada dambe u sheekeeyo afar sax ka dambe aan u sheekeeyo ساس وقتياس ما كنا قاقدي إن بدن أي نولش إلى سوق بسيطة وأنا كفرح سنة يعني ملو بجوتنا وأنا كفرح سنة سيد وعن إن نولش إيجو سوق بقالتنا أدبن أو فرح سنة ما الدنيا ده إيه مثلا قفكر عن جعل عنيا أم حتى عن جعل نودي قف ولا بروح من سيا إنه لما أنا بدن أسمع بس أنا هالقف يعني كويك هالقف جعل مرو بن فرح أيام نودي أجري حتى مرة خاد ميلاد بالحي وحن جعل أنجري إنا ميلاد بالحي سوضو أنا وحنا نولا أيده مرو بكفكره فرحدي ka fikir aydan sidaas kale mar walba waxay ka jeclaan inaan farxadda ka fikirto ay wax walba nolosheeda ana ay sheegato xitaa guusha mar walba aan gaarayo ayada ay u caawin jirto oo wax walba la qaban jirto waan ku maasantaa jecelkeyga aan aad ku jecelahay marka jecelkeyga aad baan ugu kalsoonaa dad badanna in badan waxa jiraan jecelka ku dhidheelaan oo jecelkooda ku ciyaaraan ani ma aamin in jecelka ku ciyaaro maalmaha kamid ayaa xaj dhacday in aniga baxo aan meel gobol aan laga soo waco oo barnaamij macna gobolka iga soo galay aan aado ayana ma is ogolaan kuma faraxsan inaan baxo balse wax iskiga marka waayo dadka qaar ayaa jiraan jecelkooda ku dheelaan jecelka waliga tixgelin ayuu ka mudan qofka jecesha waa inaad tixgelisaa marka aniga waxaan jecel arimaha jecelka mar walba inaan soo inid macna soo sameeyo oo in soo dhiga macna YouTube macna channelkani mar walba in soo siiyo balse markuu waras waxaan jeclaa in nolosheeda in kala sheekeeyo وانا كاغا شيكيا عاو وانا كما سنتي اصحابتي ميل با جبتين انيغا نولشيدا ان بدن 4 سنه idila 4 sano ayaan soo jecleen balse 4 sano waxa soo maray idil in kaga sheekeen karo oo meel dhif ayaan kaaga soo qabto dhibaatooyin oo soo marnay rafaad wax walba waxana soo maray lama arko laas jacaylka dad ogtahay qiimo ayuu leeyahay dhibaato walba aad maraysidna ha u malan wax adiga kale kugu dhacay ee maahan noloshada idil wax ku dhacay waay waxaasina maahan waligood inay kugu socdo saxaabta marka waxaan jeclaa dadka oo maanta aniga gabadhan jeclaa darteeda aniga horta noolo iskama jeclaada ee waa la jeclaada qofka jeceshaana
waxaan jeclahay inaan wax walba aan dareensiiyo balse aniga waxaan jeclahay insha allah caawa kaamirada xoogaa iga cilidaysan taas darteeda waxaan rajeynayaa fiidooga xiga inaan idiin soo geli doono janaalkani marka waxaan leeyahay asxaabta meel baa joogtaan fiideoan ha igu ilowdina subscribe wax walba fiideo ku xigo waad insha allah la socda caafimaadkaaga ka faa'iidayso waa anagu ah team walaalaha media runtii horta kaamirada ahay weliya mikhiiroon wallahi bilaa jaceylka uu sheekeynay runtii ani waa qiirooday wallahi waa qiirooday kaamirada way dhici rabta xataa wallahi bilaa jaceylka uu sheekeynaya ma iga dhaafta banta wallahi beema wallahi haddana waxaa dhaamisay dad badan isku wadan haddana naayba isku wadid hadhow cidlo meel cidla meel cidla soo istaagay wallahi لازم كل شيء امين انا بتاع فادر فلوس ابا جعل دينا كويدينا فيديو ان انا وسدد مرنو صاحبكيga qadar aad iyo aad u mahadsan yahay maanta wuxuu soo jeediyay wax shay aad muhiim ah caafimaadkaaga ka faa'iideyso aniga ah team walaalaha media state home xaafadda soo bixin